wejigaa kuu qurux badnaanaya baa la yidhi oo waa maxay muxuu ku qurux badnaanayaa iftiin baa laabtaada gelaya nuur baa gelaya ciddii habeenkii salaatuleylka cidda caadaysata dadka lama weji aha wejigiisi wax ilaahay baa nuur gelinaya allahu nuuru samaawaati wal-ard waxa gelaya farxad iyo tuma'niina ayaa laabtaada gelaysa waad xasilaysaa xasilooni ayaad noloshaada aad ku noolaanaysaa waanad helaysaa xadiiskii wuxuu saxiix ahaa rasuulullaahi wuxuu yidhi sallam يضحك الله إلى المصلي في الصف وإلى القائم في جوف الليل إلهي وأقص لابو يري قفك صفك هور صلاة عاديست إنو كنت كذو وحاكلو إلهي أقص لابو يري إلى القائم في جوف الليل هبين كيسك برك قفك ها إلهي أتاغن إلهي وأقص لابو النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كم إذا وحو يري أو يضحك الله عز وجل وإلهي نم يقص لابو يري مركاسو النبي يقول نعم وقص لابو يري مركاسو الصحابي وحو يري لا يعدمك من رب يضحك خيرا رب قص ليبو يري خير أكتيس كواي ما يبو يري هذا رب يقص ليه أكتيس خير كواي ما يبو يري أبدا أوامحي والله بضاسو إلهي يقص لا قفك صفك هو صلاة دائمة يقفك هبين كي سقبركي كعه وحكذلك علماء النبي محمد نوشك صلى الله عليه وسلم منك صحابي هاي أسيد بن حضير الله كرر عليه هذا هبين بوسكعي وحب بلا بسورة الكهف وأخريو قريجيسة وحو كهر آخرنا يا دير يرو قريجيسة كهر يالي دارتيسة أي قرآن كو آخر سنة وسورة الكهف المير دلايو يحيى لو ننجري أي أكتيسة جيفو الكيال والمير هل كان فرس باو غحرا سورة الكهف بو بلا صحابي قاسقو إنو أخريو waxa uu arkay faraskiyo doobinaya oo bodboodaya mar allaala markuu suurada si akhriyaba ilmihi yaraadaan u baqay biir farasku inuu iga jiray ilmaha yar markaas waxa uu yiri subhanallahi alali alazim inta qorbaan u qaaday biir indhahayga waaba daruur igu soo dhawaata mar allaala markaan quraanka akhriyo biir daruurta ii soo dhawaata markaan joojiyo inaan kaliya yaxya iyo faraska aan kala ilaali yiraahdana daruurti way iga kacdaa buu yiri hadana markaan akhri way igu soo dhawaataa orod baan habeenkii oo aroortii orod ya rasuulullaahi xalay saasan igu dhacday maxaad qabatay buu yiri suuratul kahf baan akhrinayay buu dhageysa rasuulullaahi wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam tilkal malaa'ikatu tanazzalat lidhikrillahi azza wa jalla malaa'ikti ilaahay wa xalay ku hareysay buu Sayd ibn Hudayr ذكري آد هيسي قرآن كي سقبرك آد إلهي أخري هيسي قرآن كيسي أي ملائكة إلهي كوغو صومرت لي والله هدات سيوذ إلهي بيوري ويكوس كعنق هذه إلهي ويكوس سلام إلهي بملائكة إلهي سبحانه هذا قيام الليل مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لذلك أذكر أن الدرين كوين الدرين تا وحن إلهي أبدكينا وكوغو إلى أن أرزاقنا وكوغو حلالين وجهك وكوغو افتيمني جركا أنا حسدك وقد دفعني كيف أنت مع الله سبحانه وتعالى بالليل قلبك وقدم بيم حينا وعاونا يا نفط ويكو أذكتاي وشنتي سلادات بابا ضدك عليلكو shantii baaba ciriiri ku ah habeenkiina hal lagu daro nafta way ku adag tahay culimadu laakiin waxay tilmaamayna siiyeen tusaalooyin inagu caawinayna siiyeen koow al asbaab adh-dhahira wal asbaab al batina laba loo kala bixiyay qaar waa qaar dhaahiro muuqdo koow intaana sii seexan habeenkii cuntada habadsan haddaad baasha buuxisid kici kari maysid ardayba sheekhiisi bari u yimid markaas wuxuu ku yiri sheekhow rasuulullaahi baan jecelahay bi sallallahu alayhi wa sallam habeenkiina ku riyooda nabiga arkana waan jecelahay bi mana arkayo uma hayo buu yiri har ma jeclida naga daabo yiri wallahi waan jecelahay bi maxamed bal ila tali intuu u yeeray buu kalluun ka dharjiyay kalluun buu habeenkii siiyay waa malaayigii ayuu siiyay kalluunkiina milix buu uga buuxiyay milix كوبيا إنه كبدنا وديدي كي رابي رسيحة دبعه كي رابا سيدي كسيحة كلونا وكدر جاي مدح ملاني كبر عضو كوبيا أنا ما كبر وأقول مركو بريبي هي حلا وحوار ما عرفت هابول ما حدا عرفت بيو
xalay oo dhan oo biyo ka daba ordaya buu yiri ooman aan xalay oo dhan ku riyooday buu yiri waad u baahneed buu yiri wariga milix ka dharjiyay buu yiri hadday dhab ka tahay buu yiri habeenkii markaad seexanaysid dhab hadday ka tahay rasuulullaahi kal gacaylkiisu aad la kulmi buu yiri maxamed sallallahu alayhi wasallam sida biyaha ayada milixda ayar baad marka war waxaan dhab may naga tahay mise waynu isku ruwaydaynana way isku celcelinana waxaan hadday dhab inay ka to in tasduqillaaha yasduqka in tasduqillaaha yasduqka nabi rasuulullaahi raa'isa sallam jihaad buu nabigu ku jira sallallahu alayhi wasallam markii gaaladii la jibay ba xoolihii gaalada laga helay ba la qayqaybiyay markaas la yiri war ninkaan inta la siiyo markaas loo soo diro la yiri war inta nabigu ku soo diray qaado waxan waa maxay buu yiri de waa xogaagii laga helay gaalada lagu soo diray inta qaado waanagu inta idin ma soo raacin anu adduun idin kuma iman buu yiri maxaati anu adduun nabi maxamed uma soo raacin oo ku dhabaal yiri nabigu intuu yimid buu sallam waxan waa maxay de waa nasiibkaagii ka qaada buu yiri anu adduun kuma soo raacin buu yiri adduun ka ma doonayo bi rasuulullaahi sallallahu alayhi maxaad iga doonaysaa buu yiri anu waxaan ku soo raacay buu yiri halka in la igu dhufto oo dar ilaahay u dhinto oo janno galo ayaan ku soo raacay buu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam kelmadun buu ku yiri in tasduqillaaha yasduq hadday dhab ka tahay afka waxaad ka leeyahay haduu uurkaagu hadii uu ka dhab yahay ilaahay baa ku xaqiijin waxa aad doonaysid goobtii dagaalkii baa la isgalay meeshii uu farta ku fiiqay buu waran kaga dhacay halkii buu ku go'ay rasuulullaahi baa loo yeeray sallallahu alayhi wasallam kaasuu yiri huwa wama isagiiba godka intuu galo rasuulullaahi intuu u qoday nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku dhaadhacay buu soo dhiiba nabiga aasay umar ibn khataab yiri radiyallahu anhu warda waligay ma tamaniyin qof qabri ku jira meeshiisa inaan galo sida ka aan u tamaniyay rasuulullaahi baa u duceeyay allahumma inni raaliban ilaahu ka ahaye adiguna raali ka noqo muxuu amal la yimid marka waxaan wax lagu noqday saxaabada iyo diintan ay wax ku noqotay hadal badan ma aha duruus ma aha ajaradaha la duubayo ma aha isku kaalayo kala yaaco ma aha